maxkamadu way heystaa bisha shanteeda maxkamada leeyahay maxkamada liiga caawiyo inuu ilmaha iga qaato rabaa ani wuxuu igu dacweynaa ma aqaani ani ma xanuunsanay dhakhtar way soo cadeeyay inaan xanuunsaneen I don't know wuxuu igu dacweynaayo ma garanaayo ilmahayga inuu heystaa ilmuhu rabaa inuu iga qaato waa lii caawiyo garabaa lii siiyo ilmahayga masaana lii wareerinaysana liiga dhigi qof waa la nihi xanuuna iga jiro xanuuna liiga geliyay Soomaaliya taas waa wax la ilaahay way waalan tahay ilmahaygu maxkamad weestaa way waalan tahay naagta lagu sharaxan yahay inuu qabinaa uu qabaaliyo I don't care ani maxaybanayga ma jirin naag la qabo ilmahayga rabaa inaan haysto Soomaaliya dib garab aliisiyo aniga wali xasidooyaa ilii waa la rabaa Soomaaliya garab ilmahayga leega qaado la rabaa oo ma waalanahay aniso مع موالنا قلبي وكذا الموالي محكمة ويسألني إنه يقاطع ربع دارتي جالسة بودكاست كتير لكن محمد وينمي يداف ويحمس محمد وينمي يداف عسكر هسته محمد وينمي يداف ويلا بيوتي ما بيسامح وياه ودن كان شرعي كما جرميا نين هذا منتل كسعود على إي صادري فرحي نينك المها يقدر على إي صادري سوماليا يكع اللي ولا الربا محكمة على هستا المهيا لقاد الربا سوماليا عاوية البوليس قال لي بصادرة برجع اللي يجيت الربا هنا مقالة ولا إسك هذا ربا أضان إسك جو أنت برجع اللي يجيت لا المهيا اللي يقدر بحلها أنا معنون سنين مهيا عنتو كر هذه بريا ورثة ليلة هنا تدوس الصلية يا عندما الله هذه بريا ورثة هنا walaalahayga run ahaantii gabadhan aad iyo aad ayaan ula qiirooday wallahi ugana naxay aad iyo aad aan uga xumahay dhibaatada hooyo Soomaaliyeed adduunka meel walba ay ka joogaan hooyooyinka Soomaaliyeed dhammaan hooyooyinka muslimiinta Ilaahay ku amaansado especially Soomaalideena dad waxa waa iska masaakiin ah oo ma aragtay aanan ka siinin aqoon fara badan aanan lahayn waxa laga yaabaa wadankii sharcigiisa inaysan aqaanin gabadhaas luqad aynan ka siinin gabdhaha oo ma aragtay meesha la joogo hooyooyinka waxaan ka codsanayaa gabadhan say sheegtay America joogta fadlan reer America dhiig isku yeela hooyadaas Soomaali ha loo kaco mana dhaheena wiilka haduu xatee gardaran yahay dib ha loo geesto waa bila aadan uu qaldami karaa qaladkiisa hala tuso hala dhaho asagana waxaan leenahay walaalow Ilaahay ka baq gabadhaas wallahi wajigeeda waa ka naxay rafaad fara badan ayaa ka muuqda gabadhaas masaakiinta waxa ka muuqata dhafar fara badan ayada dhan way is ilowday timaheeda xataa iyo wajigeeda bay ka muuqataa abaayo wallahi aad ayaan kaaga naxay muuqaalkayga hadii uu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa horta number 1 ina inta soo qabeysatid soo weyseysatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala laba salaado ragca u dukatid dhac aad seexatid Ilaahay qulubta uu ku qaboojina Ilaahay isku dhiib social media dibkaaga ha keenin familkaaga problemkiisa ha keenin waxa la dhahay qofkii oo Ilaahay jecel yahay adduunka ku itixaamaa marka ma ahan waa dareemi karaa dhibka baa ka fara batay wajigaaga ka muuqata inuu dhibka ka fara batay wallahi aad iyo aad aan war xumaado ugana naxay wiilasha Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaalow ninkaas ma aragtay walaalkeen ah qaladka saas u weyn gabadhaas say sheegaysa ka galay oo doonayo inuu ilmaheedii ay dhashay 9 bilood iyo sugooda caloosha ay ku soo waday la soo foolatay cijiyo iyo ma aragtay tin gudaheeda caloosheeda gudaheeda ku yeeshteen inuu xaq daro uga qaato waxaas xaq ma ahan Ilaahay laga cabsado shalayna waxa waaye gabdha baa life u soo koraayay gabar masaakiin oo hooyada inta ilmeed u soo dhiibatay oo ma aragtay ilmaheeda korsanayso oo xoogsanayso oo mustaqbal cusub samaysato oo iska xaamilo ah oo ilmo koris ku jirtaan life intaad u soo korteen baa 5,000 10,000 daawanaysa waxaan ku dhahay loo soo dirayaa lofka iyo waxaan ku dhahay laaga iyo 100,000 la gaarsiinaya laaga Soomaaliya Ilaahay ka baqa hadda anaga isku naxariisan Ilaahay nooma naxariisanaayo gabadhaas masaakiinta loo kaco ha loo naxariisto number 1 gabadhaas waxay u baahan tahay nasiino in ilmaha laga reebo ay soo nasato ayadana waxaan kula talinayaa abaayo number 1 Ilaahay u noqo
maalinta ilaahay isku xirto ciid kaa guuleysan karto adduunkan dhan inta joogtada isku maad gaal islaan ma kaa guuleysan karaan mana ku soo gaari karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isku xir qulubtaada dejiso ilaahay qulubtaa kuu dejiyo nin ha u ooynin abaal male xaasid waaye nin bila aadan nin soomaalina kumaba jirabo waa la yaqaanaa ma fahanteen asagana waxaa laga yaabaa inuu ka cararooyo jaal sabood waa adduunyo ma fahante maxaa waaye aakhiro ma kuu raacayo xoolo camalkaaga ku raacayo tan kaleeto ilmahaaga ayay siinaysaa war maanta haddaa $1,000 xataa gabadhaas aad siiso maanta 2 cunug meeshaas kuu joogto kunka waxaa ka qaalisan caruurtaada waa haddii aad awooddo waaye waxa adiga awoodana cid kaa qaadaysa ma jirto tan kaleeto waxaa waaye iimaankii uu ku weynaanin naagtaaneeta waa furtay dad shaydaanaa jiro dad baa jira shayaadiina oo shaydaanta ka daran oo ku dhahaya maxay lacagta kaaga qaadane maaragtay kasoo dacwey inta kala dhac acuudu bilaa raggi Soomaalidu waa xumaadeen adduun waxaan ku dhahay qurbihii waxay keeneen dumarkii ayagoo eelba ku furaayo dhibaato u geysanaa inay haddana maaragtay dacwo ugu sii daraan yaa marka waxaan idin leeyahay gabdhow isku badnaada meeshaan waxaa ka socoto waa kaa dhalaa waa kugu dhibaaha ka socotee hala isku badnaado oo hala is jiro oo waxaan ku dhahay sida goronyo kale halug han igugu jirto halugna badaanka ha idiin taalo mar walbana waxaa ka taxadirtiin caafimaadkiina intaas ayaan gabdha idinkula talinayaa intaa muuqaal kaleeto ku kulmeyno waa walaashiin jiijo idin leh الله معك في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Take care. Bye bye.